بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo sanadkii 2024 yahay waxaan nasiib wanaaga inaanu kala saxarayno memorandum of understanding dowladda federaalka Ethiopia sababtihiinba qof waliba ama madaxweyne kasta wuxuu hirgeliyaa danta dadkiisa. رئيس الوزراء إثيوبيا فدرك إثيوبيا وحا ونقعد صدي إنه وذكرنا understanding إن أي بطة كهران ميل أي دجان عيدن كله ما دام عليه عيدن كي مريس كهاد ميل أي دجان إن السومال لنا وحنو ابن بدن إثيوبيا يقرن كبودي سنيني إن لنوع قصنا قرن مدينة ومدبر المغرب waxay noo farxada oo naga mahadnaqayaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia sidaanu ku heshiinay ay ku qoran halkan in anaguna aanu ogolaano 20 kiiloomitir badda iyaguna markaaba ay naaqoonsadaan qaranka Soomaaliya dawladda horeysay ay noqon doonaan marka la saxaashiska 20 kiiloomitir xeebta ciidamadooda inuu ogolaanay deegaan ciidamadoodu waa liis waa kiro ma hadhu la siinay بلاشنا ما waxaan maraya arintaasi inay tahay mid labada dalba u dana sii xoojinaysa waxyaalaha kale ee nolosha oo la iska kaashado oo dhan inagu waxaan leeyahay badii Ethiopia waa dal weyn oo dad badan oo qaniya oo u baahan inay inala wadaagaan wixii horumar oo dhan waan naga balan qaadeen insha Allah berbera waxa ka mid noqon doontaa dekadaha ay Ethiopia soo marayso wixii ay soo dejinaysa qayb kamid kolba inta aanu horumarino aad iyo aad baan u mahadnaqayaa ra'iisul wasaaraha insha Allah dhawaan inuu noqdo Ethiopia ay noqoto dalkii u horeeyay ee Soomaaliland aqoonsada anaguna aanu noqono dalkii u horeeyay ee soo ogolaada 20 kiiloomitir badda iyo wixii aad iyo aad